رئيسل wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta soo gabagabeeyay safarkiisii uu ku joogay wadanka Shiinaha siibana magaalada Yinchuan ee gobolka Ningxia taas oo lagu marti qaaday furitaanka shirka toddobaad ee China iyo wadamada Carabta. Shirkaas oo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ka jeediyay khudbad taariikhi ah ayuu ku soo bandhigay horumarka Soomaaliya gaadhay sanadihii dhaweyd iyo fursadaha maalgashi ee ka jira iyaga oo ku tiirsan qorshaha horumarka qaranka ee dhawaan la ansixiyay. sidoo kale intii uu ku sugnaa gobolkan ayuu Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre la kulmay mas'uuliyiin ka socda hay'adaha ugu waaweyn ee Shiinaha iyo gobolkan aan joogno oo uu ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ah ee qotada dheer ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Shiinaha iyada oo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Xi Jinping ay yeesheen bishii 9aad ee sanadkiina soo dhaafay ee xiriirka labada dal kor loogu qaaday heer استراتيجي sidoo kale intii uu Ra'iisul Wasaaruhu ku sugnaa gobolkan ayaa wuxuu la kulmay ganacsato Chinese ah iyo ganacsato Soomaaliyeed iyada oo la qaban qaabiyay shir isu keenaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Chinese ka lagu soo bandhigay kheyraadkii Soomaaliya hodan ku leedahay iyo fursadaha maalgashi ee ay iska kaashan karaan ganacsatadaas. sidoo kale waxa uu booqday xarumo iyo warshado danaynaya runtii in ay Soomaaliya maalgashadaan taasoo ka qayb tahay warshadaha tamarta iyo warshadaha caanaha iyo beeraha. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu noqonayaa Ra'iisul Wasaarihii u horeeyay ee safar ku yimaada dalkan Shiinaha intii ka dambeysay Ra'iisul Wasaare Cabdirashiid Cali Sharmaarke safarkiisii China ku yimid 1963 waxayna ka turjumaysaa xiriirka sii xoogsanaya ee istiraatiijiga ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.